7 cunto oo ay waajib tahay in la helo si kelyuhu u caafimaad qabaan. Kelyuhu had iyo jeer ma helaan fiiro gaar ah, laakiin waxay door weyn ka ciyaaraan ilaalinta caafimaadka jirka. Waxay caawiyaan ka saarista qashinka, dheelitirka dareeraha, iyo ilaalinta arrimuhu si habsami leh maalin kasta. Inkasta oo ay si deggan u shaqeeyaan, had iyo jeer waxay ku jiraan shaqada. Ku daryeelida iyaga iyada oo cuntada loo marayo waa dhaqaaq fudud oo caqli badan. Marka, haddii ujeedadu tahay kelyo caafimaad qaba, cuntooyinkan dhadhan fiican leh ee kelyaha u saaxiibka ah waa meel fiican oo laga bilaabo. Saaxiib sabskraib haddii aad ii saarto waan kuu mahadcelinaa. Basbaaska gambaleelka cas. Runtii, macaan, iyo midab dilaacsan, basbaaska gambaleelka cas ayaa la mid ah xoojiyayaasha caafimaadka yar ee dabiiciga ah. Waxay ku yar yihiin potassium, laakiin waxaa ka buuxa fiitamiin iyo antioxidants, taasoo ka dhigaysa inay ku fiican yihiin inay kelyahaaga siiyaan nasasho iyadoo weli ay ku jiraan dhadhamin badan. Iska yaree salad, ku tuur dubay, ama kaliya cunto fudud iyaga oo cayriin ah, way caafimaad qabaan oo dhadhan yihiin si kasta oo aad rabto. Cauliflower. Cauliflower waa khudrad fudud oo si sahlan loo isticmaali karo, oo ay ka buuxaan fiber, folate, iyo fitamiin. Waxay ka caawisaa jirkaaga inuu nadiifiyo oo uu taageero kelyahaaga adigoon ku darin walaac. Waxa kale oo ku yar potassium, taas oo ka dhigaysa doorasho caqli gal ah caafimaadka kelyaha. Isku day in la shiiday, dubay, ama maraq la isku daray waa hab fudud oo aad kor ugu qaadi karto cuntadaada. Tufaaxa. Tufaaxu waa qafiif, casiir leh, oo si dabiici ah u macaan. Waxay ka buuxaan fiber, waxayna caawiyaan la dagaalanka caabuqa, taas oo u fiican caafimaadka kelyaha. Intaa waxaa dheer, waxay ku yar yihiin kalooriyada, taasoo ka dhigaysa doorasho fudud oo aan dembi lahayn. Waxaad u qaybin kartaa boorash, ku dhex tuur salad, ama ku raaxayso mid fudud sida cunto fudud oo degdeg ah. Waa doorasho fudud oo caafimaad qabta. Toonta. Toontu kaliya maaha in dhadhanka lagu daro, waxaa ka buuxa faa'iidooyinka antibararka iyo antioxidantar kuwaas oo taageera caafimaadka kelyaha oo caawiya maaraynta cadaadiska dhiigga. Waxay ka dhigtaa cuntada dhadhan cajiib ah. Sidoo kale, waxaad si fudud ugu dari kartaa cuntooyinkaaga siyaabo badan si aad u hesho laad caafimaad leh oo dhadhan fiican leh. Blueberries. Mid yar laakiin xoog badan, blueberries waxaa ka buuxa antioxidantar kuwaas oo ka caawiya ka ilaalinta kelyahaaga dhaawac waqti kadib. Waxay sidoo kale ku yar yihiin soodhiyamka iyo potassium, taasoo u fiican qof kasta oo daawanaya qaadashada. Haddii aad ku darto smoothie ama ku rushayso caano fadhi, waa hab fudud oo lagu taageero kelyahaaga. Saliid saytuun. Dareerahan dahabiga ah wuxuu wax ka taraa wax ka badan cuntadaada, waxaa ka buuxa dufan caafimaad qaba oo taageera caafimaadka wadnaha iyo kelyaha. Sidoo kale waa ka hortagga caabuqa iyo waxqabadyada. Ku daadi saladka, u isticmaal karinta, ama ku qasliin dhanaanta si aad u labisato degdeg ah. Wax yar ayaa aad u dheer, jidhkaagana wuu faa'iidaysan doonaa. Kaabas. Kaabashku waa khudrad nafaqo leh, kelyaha u saaxiibka ah, oo ay ku yar tahay potassiumka oo qani ku ah xeryahooda dabiiciga ah ee caawiya ilaalinta jidhka. Antioxidantskeeda waxay caawisaa dhimista bararka, waxayna taageertaa fayoobaanta guud. Way fududahay in lagu daro cuntooyinka sida saladyada, shiilan, iyo maraqa. Sidoo kale waa mid la awoodi karo, la taaban karo, oo ay ka buuxaan wanaag.